بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. maanta maalin sabtiya bishuna ay tahay 16 bisha toddobaad 2025 waxaan joognaa degmada Dar es Salaam oo soo gaarsiinay raashin qaybintii aanu ka wadnay guud ahaan gobolka Maroodijeex. waxaan halkan aad uga mahadnaqayaa hay'adda King Salman oo runtii si weyn noola shaqeysa xilliyada abaaraha iyo xilliyada danyarteena aad u garab istaagta. sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo runtii siyaasaddiisa iyo ballanqaadkiisa ahayd in dadkeena danyarta la garab istaago. hay'adana ay tahay hay'adda uga wakiilka ah in qaranka ay u gurmato dadkeena danyarta xilli kasta, goob kasta iyo goor kastaba. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha hay'adda diyaargarowga afooyinkeeda raashinka qaranka Cabdiraxmaan Maxamed Ismaaciil Dixood iyo gudoomiye ku-xigeenka Cabdiraxmaan Xamdulle runtii si weyn nooga shaqeeyay sidii deeqdan ay u soo gaari lahayd guud ahaan gobolka Maroodijeex oo ay ka jiraan xaalado abaareed oo aad u daran runtii gobolada iyo deegaanaduna ay isku mid yihiin xagga xaaladda abaarta. waxaan u mahadnaqayaa si gaar ah gudoomiyaha degmada Dar es Salaam Ciise Muuse xogeyihiisa iyo gudoomiye ku-xigeenka runtii si weyn iyaguna nooga shaqeeyay in deeqdan ay degmada Dar es Salaam soo gaadho oo runtii waqti badan geliyay oo habeen iyo maalmo runtii hawshaas u hagar baxay sidii degmadu soo gaari lahayd. deeqdan oo kaliya nagalama shaqeyn gudoomiyuhu runtii waxaan leenahay wada shaqeyn joogta oo degmada xilli kasta gobolka Maroodijeex laga qaybinayo waxa ka mid tahay degmooyinka aan mar walba soo gaarsiino. gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenkiisa aad baan ugu mahadnaqayaa runtii si wanaagsan oo la shaqeeya oo dadaal badan geliya runtii in deegaanka wixii loo heli karo la soo gaarsiiyo. sidoo kale waxaan mahadnaqayaa dadka deegaanka gudaan oo runtii iyaguna si wanaagsan mar walba noo soo dhaweeya oo deeqda si wanaagsan u gudooma haday noqoto gudoomiyaha iyo odayaasha kala deegaankaba. waxaan maanta ku wareejin doonaa guud ahaan degmada Dar es Salaam 300 oo qoys, guudaan waxaan ku wareejin doonaa 200. aad baan u mahadsantihiin warbaahinta Narford oo runtii ka shaqeynaysa sidii wax qabadka hay'addu ay bulshada u gaari lahayd iyo shaqaalaweynaha hay'adda Narford oo gobolka Maroodijeex. aad baad mahadsantihiin. halkan waxaan kaga gudoominaa deeq raashina oo dhan 200 oo qoys oo loogu talagalay dadka danyarta abaaru saameeyeen deegaanka. halkan wax noogu timid degmada Dar es Salaam anagoo ka tirsan tuuladii Udaameed. waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan muxsiniinta hay'adda ka hortagga abaaraha, gudoomiyihii Ciise Muuse iyo laamaha kala duwan ee wada hawsha. maanta si fiican baan uga gudoonnay hawsha dadkana intii aan ugu talagalnay ee u jilicsaneed waan gaarsiinaynaa. waan uga mahadcelinaa dawladda dhammaan gudoomiyaha aafada si ay u sii kala sarreeyaan dhammaan intii ka hawl qaadatayba waad mahadsantihiin baan leenahay. anigoo ka mid ah odayaasha degmada Dar es Salaam tuulada la yiraahdo Udaan ee ugu galbeedaysa degmada Dar es Salaam. halkan maanta waxaanu ku gudoomaynaa deeq raashina oo aanu ka helay hay'adda aafada iyo dawladda haddii la yiraahdo madaxda ka yahay Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ciro. deeqdaasi oo 200 oo qoys ah soo sama 200 oo qoys ah ayaanu ku gudoomaynaa. wadankana waad ogtihiin oo de haddii ay halkan tahay iyo haddii ay bari tahay iyo hadday galbeed tahay abaara ka dhacay inkastoo de aanay waxa naloo keenay waxba buuxinaynin haddana waxaan ugu mahadnaqaynaa oo aan aad iyo aad magaraysaa ugu mahadnaqaynaa raashinkaana la siiyey inuu magaraysaa baahida waxyaabo qaarkood uu daboolayo. halkana waxaa nala jooga gudoomiyihii degmada Dar es Salaam iyo inan ka socdo isaguna isku duwihii Narford ayaa nala jooga gobolka Maroodijeex. kolka saasaanu haddii la yiraahdo gudoonay raashinka saa iyo nabadgelyo. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدا مسؤولينتي iga horeeyay sheegeen maanta oo bishu tahay 26 bishii toddobaad 2025 waxaynu ku sugannahay deegaanka Udaan oo ka tirsan degmada Dar es Salaam ee gobolka Maroodijeex. sida idin muuqata hareerahayga waxa taagan gudoomiyaha degmada Dar es Salaam Ciise Muuse Axmed iyo Cabdixakiin isku duwaha hay'adda Narford ee gobolka Maroodijeex iyo dhammaan odayaasha iyo dadka ka soo qayb galayba
marka horeysa waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii deeqdani waxaynu odhan karnaa Nutford iyadoo mar kasta u taagan oo hay'ad qaranka u aasaasan sida ay dadkooda maxay ahayd baahiyaha uga jawaabi lahaayeen maanta waa maalintii ugu habboonayd aad iyo aadna waan u soo dhaweynaynaa maadaama aanu nahay mas'uuliyiintii degmada Daarusalaam ee runtii sida tooska ay u taabanaysay cabdixakiin iyo gudoomiyaha hay'adda heer qaran iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo hay'adda islaamiga King Salman ee deeqdan soo bixisayba aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa waayo maanta Soomaaliland hadday beero tahay iyo hadday xoolo tahay hadday xeeb tahay iyo hadday ooga tahayba waxa jirta abaar aad iyo aad u baahsan oo isma dhaamaan oo marka roobka la waayo beerihiina waxba ka soo bixi maayaan xoolihii oo labadii shay ee aynu munaafacadsanaynay labadiiba meeshay ka baxayaan marka dadkeenu way u baahan yihiin intan iyo in ka badanba aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa ilaahay waxaan ka rajaynayaa gacantiisa lagu dhargaaye inuu raxmaadkiisa inoo shubo aynu insha Allah inaguna ka faa'iideysan doono mar koobaad iyo mar labaad baan u mahadnaqayaa dadka reer Udaameed sida qalbiga fiican noo soo dhaweeyay runtii iyagana aad iyo aad baan u mahadnaqayaa aad iyo aad baa mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وجهرين إلهي بقى مهضله ما أنت سوق كاني ديجانك ودان وكتر سنة دجمة دارسلام وحنكفر حسنا هاي مركو وادي مر لبعض بقى إن نسوق عندنا ديجانا كم إذا دجمة دارسلام النجوا وحوي وسدنا وحوي تاكلين لو قلت لك علي إن لو جارسيو جودهان bulshooyinta ama dadka ku nool Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan dadka ku nool gobolkan Maroodijeex iyo degmooyinka hoos yimaada marka koowaad Ilaahay baynu u mahadnaqaynaa marka labaad waxaynu u mahadnaqaynaa cid kasta oo deeqdan ka soo qayb qaadatay hadday tahay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ugu horeeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale mas'uuliyiinta ugu sarreysa hay'adda ka hortagga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka iyo mas'uuliyiinta gobolka Maroodijeex u qaabilsan hay'adda ka hortagga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka oo inagala joogo isduuyi gobolka cabdixakiin runtii deeqdani waxay ka kooban tahay 300 oo qoys guud ahaan oo loogu talagalay in dadka waxa weeye abaaruhu ay saameeyeen la gaarsiiyo waxaynu halkan deegaanka Udaaneed waxa weeye ku qaybinaynaa deeqdaas qaybta ugu badan oo ah 200 oo qoys 100 qoys oo kamidana waxa lagu qaybin doonaa deegaanka waxa weeye annayo oo iyadna ka tirsan degmada Daarusalaam 300 oo qoys ee soo gaaray degmada sidaas waxa weeye ay u qorsheysan yihiin waxaynu Ilaahay ka rajaynaynaa waxyaabaha hadda aynu arkayno dhibaatada aynu arkayno waxa keenay waxa weeye waa abaarta iyo roob la'aanta Ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu Ilaahay abaarta inaga soo jabiyo raxmaadkiisa oo ah ka kaliyaatay ee ummadan wada gaaraya ka kaliyaatay ee ummadan hadday beero tahay iyo hadday xoolo tahay intuba ay u baahan yihiin inuu Ilaahay waxa weeye noo shubo waxaynu aaminsanahay maadaama inuu nahay ummad islaama inaynu gacanta kaliyaatay ku dhergi karnaa ay tahay gacanta Ilaahay oo wax kale oo aynu barbar dhigaynaa aanay jirin waxaynu mar walba Ilaahay ka baryaynaa inuu isagu gacantiisa waxa weeye raxmaadkiisa nagu siiyo waxaan sidoo kale aad ugu mahadnaqayaa dadweynaha deegaankan Udaan oo iyaguna waxa weeye u soo xulay waxa weeye deeqdan la soo gaarsiiyay ee dadkii ugu jilicsanaa ama dadkii iyagu sida gaarka ugu baahnaa waxaan leenahay sida wanaagsan ee dadka u soo xusheen ayaanu deegaan kaste oo waxa weeye deeqda noocan ay gaadho guud ahaan dalka oo dhanna aan ka rajaynaynaa in dadka ugu baahida badan leh waxa weeye ay gaadhi doonto mar labaad iyo mar saddexaadba waxaynu u mahadnaqaynaa cid kasta oo deeqdan waxa weeye ka soo qayb qaadatay hadday tahay waxa weeye gaarsiin iyo hadday tahay soo bixinba si gaara waxa weeye hay'adda King Salman oo ah waxa weeye hay'adaha ugu fiican ee waxa weeye waqtiyada adag dadkan waxa weeye gacantooda wax ku soo gaarsiiya mar labaad iyo mar saddexaad iyagana waxaanu leenahay dadkani waa dadkiinii wixii aad soo gaarsiin kartaan haddii Ilaahay idhaahdo waad soo gaarsiin doontaan
sidoo kale waxaan si weyn ugu mahadnaqaynaa isduwaha gobolka oo runtii ah nin dhallinyara oo aad u firfircoon oo wakhti fara badanna waxa weeye u hura sidii loo gaadhsiin lahaa waxa weeye deeqda noocana dadkii u baahnaa aad baa u mahadsantihiin